iyadoo sii wada booqashooyinkeeda maamul goboleedyada xubnaha ka federaalka ee Soomaaliya ayaa mas'uulka ugu sarreeya qaramada midoobay ee dhawaan loo soo magacaabay Soomaaliya. Waxay booqasho ku tagtay Puntland oo ay kula kulantay hoggaankeeda waxayna soo dhaweysay doorashadii dhawaan ka dhacday halkaasi. Ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa booqashadeeda kadib la hadashay warbaahinta. Maanta waxaan ka wada hadalnay arrimo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan yihiin doorashadii deegaanka ee sida wanaagsan u dhacday 30kii degmo 25kii May, waxaana ku dheeraaday hambadyo maadaama ay tani ay tahay horumar ballaaran oo Puntland ay u qaaday dhanka dimuqraadiyadda. Waxaan sidoo kale ay soo bandhigaysaa dariiqa loo maro qaybaha kale ee Soomaaliya. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa hadalkan ka sheegtay kulan ay si wadajir ah ay warbaahinta ula qaateen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ay horay ula kulantay wadahadallo dhinacyo badan taabanayana ay la yeelatay iyadoo ay weheliyaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo la-taliyaashiisa. In ka badan 100,000 oo qof ayaa lagu qasbay inay ka qaxaan magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool dagaalka ka socda gobolkaasi. Qaar badan oo ka mid ah dadka barakacay ayaa magangelyo u soo galay magaala madaxda Puntland, Garowe iyo qaybo kale oo ka tirsan maamul goboleedyada Puntland. Waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo kooxdiisa taageerada ay u fidiyeen dadka barakacay. Waxaan sidoo kale xusay codsigiisa ku aadan qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamiga ah inay sameeyaan wax badan oo lagu taageero xaaladda bini'aadanimo ee halista ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maqlo madaxweynaha sida cad ee ay ugu go'an tahay wada hadalka oo ka ciyaaraya kaalintiisa anigoo abuurayna oo aan dhammaystirayno geedi socodka dib u eegista dastuurka. Waxaan ku dheeraaday taageerada buuxda iyo xafiisyada wanaagsan ee qaramada midoobay inay isku dayaan inay gacan ka geystaan sidii loo heli lahaa waddo loo maro sida ugu dhaqsiyaha badan, sababtoo ah marka la helo dowlad adag oo Soomaaliya oo dhan ah waxaan awood u yeelan doonaa in aan diiradda saarno arrimaha muhiimka ah ee horumarinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhalinyarada, waxyaabaha u sahlaya in Soomaaliya ay door xaq ah ay ku yeelato gobolka si ay u noqoto Soomaaliya oo barwaaqo ah isla markaana xasiloon. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa intii ay ku sugnayd magaalada Garowe waxay sidoo kale ay la kulantay shaqaalaha qaramada midoobay ee fadhigeedu uu yahay magaalada Garowe, waxayna warbixin ka siiyeen taageerada kala duwan ee ay siiyaan hay'adaha ay wada shaqaynta la leeyihiin ee ku sugan Puntland.